diyaar maatiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho xalay abaarasaq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 52 daqiiqo ayaa waxa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qoliyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhawaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo burburiyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga dhismooyinka iyo wadooyinka